shir jaraa'id uu maanta xarunta madaxtooyada uu ku qabtay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee maamulka Hirshabelle Bishaar Xasan Xirsi ayaa waxa uu kaga hadlay caqabad dhanka amniga ah. wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee maamulka Hirshabelle Bishaar Xasan Xirsi ayaa waxa uu sheegay in is-hor-istaag lagu sameeyay xarunta uu ka degan yahay magaalada Jowhar isla markaana loo diiday in uu u gudbo. wasiiru dowluhu ayaa sheegay in dhanka amniga ee maamulka Hirshabelle uu yahay mid haatan faraha ka baxsan marka loo eego tacadiyada loo geysanayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo golaha baarlamaanka. salaamaya dhammaan golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka Hirshabelle waxaan rabaa inaan qabto shir jaraa'id oo ku saabsan xalay hoygii aan ka deganay Jowhar oo ahay hotel hoygaas oo aan ku deganay wasiiro badan iyo xildhibaano badan ayaa mar alla markaa imaado oo rabay inaan hoygii daga waxa la dhahay qoryo in lagu qabtay ma degi kartid baabuur gaarigaagana ma galaayo la bax meesha marka waxa ka cad meesha in ku tagarfal awood ee ka jirto ayna tahay meeshan ma ahan deegaankaagi la isku hanjabayo deegaanka anigoo waliba wasiir dowlaha amniga magaceyguna oo yahay Bishaar Xasan Xirsi waxa saas yeelayeen waa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cali Caadle arintaas ayaa xalay dhacday dadka waxaan u sheegayaa in laga dayo handadaada waxaan rabaa inaan idin cadeeyo arintan oo dhacday xalay ma ahan kaligay waxa lagu hayaa wasiirada waxa lagu hayaa xildhibaanada oo aan ka soo jeedin deegaankan ayaa meeshan deegaanka aniga iskale ayaa loogu hanjabaa arintaasna waa jirtaa oo la isku hanjabayo deegaanka anagoo wasiiradii ah oo waliba quseeyay wasiir dowlaha amniga aan ahay oo amniga dhan oo aniga aan mas'uul ka ahay ayaa saas leeyahay dhaqmaya maxaa u maleynaysaa xildhibaanadii maxaa u maleynaysaa wasiiradii kale maxaa u maleynaysaa shacabkii kale iyo shaqaalaha wasaaradaha ama dowlad goboleedka Hirshabelle marka sidaas ayaa ka jirta meeshan tani markii siyaasiyiinta maamulka Hirshabelle ay isku qabteen dhanka siyaasadda ayaa waxa ay soo tarayay tacadiyo kala duwan oo marka loo eego shuruucda dowladnimo aan ansaxayn. Cabdi Fataax Zaki, Bulsho TV, Jowhar.